عدة حبرانيسان سو سومالان maaha عدة حبرانيسان سو dalka maaha ma qabiil baad xubaraanaysaan عدة حبرانيسان soo qaranka maaha Soomaaliland ha guulaysato idinku guulaysta waxay farxada buulkan oo ahaa buulkii ololahayga doorashada gobolka Maroodijeex bartii aan ka bilaabay inaan ku soo noqday oo wiig ka hor aan ciyaalkan diiwaan gelinay carruurtan waxay isugu jiraan carruurtii xaafadda ee u badnaa agoomaha iyo danyarta xaafadda ee awoodi kari weeday in iskuulada tagaan tiradoodu imika intaanu diiwaan gelinay iskuulka Nuuridiin aanu geynay waa 100 arday 100 ka arday sababtaan u geynay waxa weeyaan in dadkan la dhiso aqoontooda aragtidooda iyo jiilkoodaba waa dad xirfadiyahana waa dad sharaf leh waa dad muruqmaala waa dad taalan badan leh ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barayaa ubadka 100 ka arday ilaahay inuu ka dhigo kuwii noqda injineerada dalka kuwii noqda culimada dalka kuwii noqda dhaqaatiirta dalka kuwii noqda hogaamiyaasha dalka kuwii noqda macallimiinta dalka insha Allah biidnillaahi baari ilaahay tacabka inuu nagu guuleeyo waxaan u mahadnaqayaa walaashay ubax iyo xaaskayga iido oo runtii aad uga shaqeeyay ururinta carruurtan ilaahayna waxaan uga barayaa miisaanka xasanaadka inuu iyaga ugu daro hay'ad lacagta ka bixinaysa iskuulku ma jirto shirkado ka bixinayaana ma jirto waa mas'uuliyad annagu aanu isa saarno in ilaahay la kaashanayno cid wax loo weydiinayaana ma jirto waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajaynaynaa inuu halganka iyo hawsha aanu wadno nagu guuleeyo عدة حبرانيسان soo Soomaaliland maaha عدة حبرانيسان soo dalka maaha ma qabiil baad xubaraanaysaan عدة حبرانيسان soo qaranka maaha Soomaaliland ha guulaysato idinku guulaysta waxaan insha Allah dhawaan ku dhawaaqi doonaa anigoo qaadanaya taladii Dr. Gaboose markaan arkay baahida jirta iyo bulshadu adeega u baahan tahay foundation Batuun Foundation insha Allah la yiraahdo oo gobolka Maroodijeex oo dhan u adeegi doonta dantoodii horumarkooda deegaan kastaba gaari doonta insha Allah maadaama gobolka Maroodijeex oo dhan la iga doortay taana dhawaan baan ku dhawaaqi doonaa insha Allah biidnillaahi